kulan wanaagsan daawade halkan waa ila wareed news haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saaro like inoo tahay muuqaalada aan soo gelino dhiirigelinaya inoo tahay waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka muuqaalkan waxaad ku daawan doontaa Saciid Cabdilaahi Dani oo qaban qaabanaya shirweyne xasaasi ah xilli uu diiday Kevin Soomaaliya uu ilaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya hogaamiyaha ICC Qaatumana waxa uu markaasi kulamo la qaatay madax ka tirsan dawladda Soomaaliya gudaha caasimadda ee Muqdisho maamulka gobolka Banaadir wuxuu la wareegay guri laga soo abaabulay falal halis ah qodobadaas iyo kuba kale ayaad markaasi ku daawan doontaa muuqaalkani waad ku mahadsantahay la socoshadeen u diyaar garooba wararkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa markaasi ka baaqday shir uu ilaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qorshuhuna uu yahay qaban qaabada shirweyne kale shirka golaha wadatashiga oo muhiim u ahaa wadatashiga siyaasadeed ee dalka ayaa lagu waday in ay ka qayb galaan madaxda dawladda Soomaaliya dawlad goboleedyada balse madaxweyne Dani ayaa si cad u diiday inuu ka qayb galo shirkaasi Saciid Cabdilaahi Dani ayaa qaar kamid ah mas'uuliyiinta dawladdiisa waxa uu sheegay inuusan Muqdisho u safri doonin isagoo beeniyay wararka sheegaya in cadaadis uu uga yimid beesha caalamka si uu uga qayb galo shirkaasi wuxuuna tilmaamay inaysan jirin wax qorshe ah oo markaasi Muqdisho uga ambabaxayo sida ay sheegeen ila wareediyo ka agdhow madaxweyne Dani ayaa bedelkii shirka magaalada Muqdisho wuxuu bilaabay qaban qaabada shir kale oo markaasi isagu wado kaasi oo ku saabsan badbaadinta Soomaaliya waa sida hadalka loo dhigay shirkaasi ayaa la filayaa inuu ka dhaco magaalada Garowe ee xaruntu ah maamulka Puntland wuxuuna noqonayaa mid la doonayo in lagu dhiso isbahaysi siyaasadeed oo markaasi cusub shirkan wada madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani ayaa loogu yeeray dhammaan siyaasiyiinta mucaaradsan Villa Soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah iyo sidoo kale madaxda dawlad goboleedyada sida Jubbaland tanina waxa ay muujinaysaa in Saciid Cabdilaahi Dani uu doonayo inuu horkaco hanaan kale oo siyaasadeed oo liddi ku ah kan dawladda dhexe ee Soomaaliya arrintan ayaa waxa ay si weyn u muujinaysaa kala aragti duwanaanshiyaha u dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo Puntland iyadoo sidoo kale tilmaamaysa xiisadii markaasi sii kordhaysay u dhaxaysa dawladda dhexe iyo qaar kamid ah dawladda goboleedyada dalka waxaana la saadaalinayaa in shirka Garowe uu noqon karo mid markaasi saameyn ku yeesha jihada siyaasadeed ee Soomaaliya ay galayso dhinaca kalena isla arrimaha shirka ayuu la socdaay hogaamiyaha ICC Qaatumo ee Muqdisho ku sugan isla markaana ka qayb galaya shirweynaha qaran ayaa kulamo la qaatay madax ka tirsan dawladda Soomaaliya hogaamiyaha maamulka ICC Qaatumo Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye ayaa kulamo kala duwan wuxuu magaalada Muqdisho kula yeeshay madax ka tirsan dawladda Soomaaliya isagoo saakay booqasho ugu tagay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor booqashadan oo ahayd salaan iyo isxog wareysi ayuu hogaamiyaha ugu yimid madaxweynaha hogaamiyaha ayaa si weyn markaasi uga mahadceliyay Qorqor isagoo sidoo kalena ku amaanay doorka shariifka ah ee markaasi uu ka qaadanayo dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya Cabdiqaadir Firdhiye ayaa hooyga uu ka degan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kale waxa uu ku qaabilay wasiirkii hore ee maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Siyaasi Xasan Sheekh Abgaal kulankan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa salaan sharafeed iyo sidoo kale isxog wareysi xaaladda guud ee dalka kulanka ayaa sidoo kale waxa markaasi ka sii horeeyay kulamo muhiim ah oo hogaamiyaha uu la qaatay kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cabdulaahi Cumar Abshiro kulankan waxa sidoo kale qayb ka ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare Cabdulaahi Cali Xirsi Timcadde iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole ee dawladda markaasi ka tirsan kulankan ayaa diiradda waxaa lagu saaray xiriirka golaha shacabka iyo dawladda ICC Qaatumo iyo muhiimadda qaran ee iskaashiga golayaasha sharci dejinta ee labada heer hogaamiyaha ayaa si weyn uga mahadceliyay booqashada gudoomiyaha isagoo sidoo kalena ku amaanay doorka shariifka ah ee markaasi uu ka qaatay horumarinta shuruucda iyo hanaanka sharci dejinta ee dalka